kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada sheeko taxana ah oo aan uga hadlayno sirdoonkii Mossad iyo baadigoobkii Cali Xasan Salaama qaybtii koowaad iyo sheekada 5 bishii December 1975 10 saac iyo barwaaqo ka hor 8 nin oo hubeysan oo madaxyadu qarsoon yihiin ayaa gudaha isku dhigay ilinka aqalka ay deganaayeen kooxdii Israa'iil uga qayb galeysay tartanka Olimbikada ee Munich waxa ayna dileen tababarihii kooxda lagdanta Moushi oo isku day inuu hor istaago iyo Josh Romano oo ah culeys dhuftaha markaas istay koobka Israa'iil qaar ka mid ah ciyaartoydii ayaa ku kacay dhawaaqa xabadaha waxayna ka boodeen dariishadaha oo ay sidaas ku baxsadeen balse waxa meeshii lagu qabsaday 9 ciyaartooy durbadii waxa yimid ciidanka booliska Jarmalka waxaana ka dab yimid wariyaashii sawir-qaadayaashii dadkii muuqaal baahiyaasha oo tabinaya xaaladda ka socota tuulada Olimbikada waxa ayna markii ugu horeysay oo si qumaati ah loo daawado muuqaal baahiyaasha dilal argagaxiso geysatay sidoo kale waxa daawanayay madaxa wasiirada Israa'iil Golda Meir oo ay hurdada ka kiciyeen saraakiil ciidan Goldan xaalka waa ku xumaa weerarku wuxuu ka dhacay dal ay saaxiibo yihiin xilka badbaadinta iyo gurmadka dadka la qafaashay ayaga ayuu dusha ka saarnaa maamulka gobolka Barifiya ee ay dhacdadu ka dhacday si aan xumaan ku jirin ay u diideen taladii ay Israa'iil soo jeedisay oo ahayd in Israa'iil ay soo dirto sayraad maktal cutubyo commandos ah oo ugu fiican Israa'iil waxbaha ka walwalina anaga ayaa soo badbaadinayna dadka la qafaashay ayuu Jarmalka ku yiri Israa'iil dhamaantood anaga ayaa soo daynayna balse Jarmalka ma lahayn khibrad badan iyo xeel abuur iyo geesinimo ay ku fool saaraan dhimasho oo ay uga hortagaan ururada dhagarta badan ee argagixisooyinka gorgortan maalin qaatay markii ay ku jireen dowladda Jarmalka iyo afduubiyaashii loo waday gegida diyaaradaha ee ku taala banaanka magaalada Munich Jarmalku wuxuu u ballan qaaday afduubiyaasha in la sii diin doono haado meesha ay markaa rabaan u qaado balse ciidanka booliska been ay u sheegeen oo dabin caruur ah iyo barbartooni ah ay u dhigeen haad ay leedahay shirkadda Lufthansa oo aan cidna saarneen ay dhex dhigeen garoonka dhexdiisa toogayaal shiish oo aan xirfad wanaagsan lahayn waxa ay saareen dhismayaasha dhaladooda hogaamiyihii afduubiyaasha ayaa markaas kore diyaaradda si iskagu hubiyo diyaaradda aan shaqaalaheedu saarneen iyo dadkii duuli lahaa oo motorkooda qabow yahay sidee ay daqiiqada ugu duuli kartaa durbadii afduubiyaashii waxay ogaadeen in la dhagray xabado ay fureen in bambaanooyin ay tuureen inta ay boolis iska caabin kula jireen waxa ay laayeen dhammaan dadkii ay soo afduubteen sidoo kale 5 ka mid ah afduubiyaashii waa ay ku dhinteen 3 nolol ayaa lagu qabtay 3dii la qabtana wax yar kadib waa la sii daayay markii Falastiiniyiinta ay afduubteen diyaarad ay leedahay Lufthansa General Sifi Semer oo madaxa wasiirada ay u dirtay Munich wuxuu xasuuqaasi ka daawanayay barto kale ee diyaaradda laga hago balse wax awood ah uma lahayn inuu dhex galo howlgalka Jarmalku wato oo ay waliba ku celcelinayeen oo ay u sheegayeen in qorshahoodu uu aad u wanaagsan yahay oo uu guul ku dhamaanayo waxa kaliya oo sameyn kara waxay ahayd inuu arko oo uu daawado xasuuqa dhacaya iyo sida loo laayay ciyaartooydoodii ciyaaraha fudud ee Israa'iil wuxuuna garwaaqsaday in nacab cusub ku soo baxay Israa'iil urur argagixiso ay leedahay Black September madoobeed Black September waxa ay Falastiiniyiintu u magac dareen xasuuqii boqor Xuseen Urdun oo ku laayay kumanaan kun oo Falastiiniyiin ah bishii September 1970 kadib dagaalkii 6 maalmood ee 1967 Falastiiniyiintu waxay awood ku yeesheen meelo badan oo dalka Urdun ka mid ah iyo xaafado ka tirsan magaalada madaxda Urdun ee Amman tuulooyin magaalooyin ku dheerarsan xadka Urdun ay la wadaagto Israa'iil ay ka dhigteen saldhigyo oo hubkoodu jidadka ula marayaan si qarsoodi la'aan ah waxayna ka hor yimaadeen awoodii boqorka si tallaabo ahna waxay noqdeen badanayaasha dalka lahaa boqorkuna wuu ogaa balse wax kama qaban karin markuu boqorka booqasho ku tagay xiro ayuu ku arkay horaad gashi rajabeeto suran oo ka babanaysa anteeno taangi waa maxay waxaan ayaa boqorkii si carale ku yiri macnaheedu
waxaa waaye dumar ayaan nahay nooma ogolid inaan dagaalanno ayaa horjoogihii taangiga ku yidhi. ugu dambeyntii xuseen intaas ka badan waa dulqaadan waayey, mana sii wadi karin in uu sida goronyadii madaxa ciidda ku qarsado markii boqortooyadiisii la kala boobay oo la kala qaybiyey. 17 bishii September 1970 ayaa boqorkii Urdun ciidan ku sii deeyay xerihii iyo saldhigyadii ay joogeen Falastiiniyiintu, waxaana dhacay xasuuq aad u xun. jidadka ayaa lagu tooganayay laguna ugaarsanayay oo markii la qabto la dilayay maxkamad la'aan. qaar waxay galeen xerigii qaxootiga, balse madaafiicda goobta ayaa lagu hoobiyey ayadoo oo aan loo kala aabiyeelin cidda ku jirta. kumanaan kun oo Falastiiniyiin ayaa ku dhintay argagixii iyo baqdintii Falastiiniyiintii. waxa ay gudbeen webiga Urdun ayagoo isku dhiibay ciidamada Israa'iil. xabsiyada Israa'iil ayay ka doorbideen xabadda Urduniyiinta. intii xasuuqa socday kuwa badan ayaa u cararay Suuriya iyo Lubnaan. tan iyo maantana lama hubo tirada Falastiiniyiinta ku dhintay xasuuqaasi, balse waxaa lagu qiyaasaa inta u dhaxaysa 2,000 ilaa 7,000 oo qof. yaasir carafaad, hogaamiyaha jabhadda al-Fatah ee ugu weyn jabhadda Falastiiniyiinta, wuxuu haminayay aargoosasho. sidaa darteed wuxuu abuuray koox qarsoon oo xataa madaxa al-Fatah iyo hogaamiyaashooda aysan ka warheynin, wuxuuna uga magac daray kooxda Black September. ururkan uu doonayo Carafaad in uu ku gaaro higsigiisa in la aqoonsado Falastiin, in uu beerjileec kaga helo adduunka ma ahayn mid si degan ku raadinayo. wuxuu ahaa urur aan nixin oo weerar in uu ku qaado u diyaar ah nacab kasta oo Falastiiniin leedahay. weliba si arxan darro ah, Carafaad wuxuu inkaray jiritaanka ururka Black September iyo wax xiriir ah inuu la leeyahay, balse si qarsoon asiga ayaa ahaa abuurihii ururkan iyo madaxiisii. waxa uu ahaa urur aan nixin oo weerar inuu ku qaado diyaar u ah nacab kasta oo Falastiiniin leedahay, weliba si arxan darro ah. wuxuuna madax ugu dhigay Abu Yuusuf, mid ka mid ah madaxii rugcadaaga ahaa ee jabhadda Fatah. madaxa howlgallada wuxuu ka dhigay Cali Xasan Salaama, oo ah nin dhalinyaro ah oo leh aragti mitid ah balse geesinimo iyo garaad badan lagu yaqaanay. Cali wuxuu ahaa wiilkii uu dhalay Xasan Salaama, hogaamiyihii sare ee ciidamada Falastiin 1948 dagaalkii Carabta iyo Israa'iil. waxaan lagu dilay goobta dagaalka. wiilkiisu wuxuu wacad ku maray inuu halganka aabihii meesha ka sii wadayo. howlgalladii ugu horreeyay ee Black September waxa warwar ah kuma beerin Israa'iil, waayo waxay ku fool lahaayeen si qomaati ah dowladda Urdun. waxay qarxiyeen xafiiska Roma ay ku leedahay shirkadda diyaaradaha ee Urdun. waxay bombo dhalo ku weerareen safaaradda Urdun ee Paris. waxay afduubeen diyaarad Urdun oo Liibiya u sii jeeday. waxay qarribaad u geysteen safaaradda Urdun ee Berna ee ku taalay Jarmalka. keedka shidaalka Hamburg iyo Rotterdam waxay dileen 5 basaasiin Urduna. waxay ku dileen hotel Sheraton Qaahira. madaxii hore ee madaxa wasiirada Urdun Wasfi Al-Tal, mid ka mid ah raggii dilay, ayaa jilbaha dhigtay oo meydkii ku foorarsaday dhiiggiisina carabsaday. markii dagaalkii 6 maalmood ee 1967 ay Israa'iil ku adkaatay Falastiiniyiinta, waxay isku xil saareen inay sii wadaan la dagaalanka dowladda Israa'iil. diyaarad ayay afduubeen, suhdinta ayay soo gudbiyeen oo ay qaraxyo ka geysteen magaalooyinka. dad ayay laayeen. Mossad iyo shacabkana waxay u tafaxeeteen sidii ay ula dagaalami lahaayeen nacabka cusub. waa inay dhex galaan buuda cadowga, qorshahooda dhiciseeyaan, qabqabtaan jabhadda Fatah. urur weyn ayay ahayd oo Israa'iil iskaga hor imaan karaan. Black September se ma ahayn. Black September waxay gudubtay sohdintii markii hore loogu talagalay iyo howshii loo abuuray. waxay bilowday dhaqdhaqaaq liddi ku ah reer galbeedka Israa'iil. xasuuqii Munich wuxuu ahaa dharbaaxadii ugu horreysay, waana tan uu ku helay Cali Xasan Salaama naanaystiisa. asaga ayaa ka dambeeyay howlgalkii Munich. inuu yahay nin u humuun qaba dil iyo dhiig ayaa aad ugu shacbaxay ururka dhexdiisa, waxayna bilaabeen in Xasan Salaama ugu yeereen amiirkii casaa. bilowgii bishii Oktoobar 1972 laba jarnaal oo howlgab ah ayaa codsaday inay la kulmaan madaxa wasiirada Golden Meir.
waxay ahaayeen madaxa cusub ee Mossad Salfi Samir iyo la taliyaha madaxa wasiirada xagga ka hortagga argagixisada Aaron Yariif. Golden waxay aad uga xanaaqsaneed dhacdadii Munich ka dhacday, waxayna tiri mar kale ayaa Yuhuudda inta la isku xirxiray lagu laayay caro Jarmal ah. maanta inta ay noo joogto baadi goobkii Mossad ee Cali Xasan Salaam